shacabka ku nool caasimadda Hargeysa ayaa u dareeray isla markaasina safaf dhaadheer u galay sidii ay codkooda uga dhiiban lahaayeen doorashada madaxtinimada Soomaaliland ee dalka ka dhacaysa. Dadweynaha ku nool caasimadda ayaa soo kalahay isla markaasina u codeynayay saddexda xisbi qaran ee doorashada madaxtinimada Soomaaliland ku loolamaya ee kala ah Kulmiye u cidiyo wadani. Telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa dadweynaha taagnaa safafka dhaadheer ee codeynta doorashada Soomaaliland wax ka weydiiyay dareenkooda ku aadan doorashada. dadweynaha reer Soomaaliland ayaa soo dooranaya doorashada madaxtinimada Soomaaliland ee dalka ka dhacaysa madaxweyne cusub. magacaygu waa Shukri Qaasin Diiriye dareenkaygu waa dareenka Soomaaliland qabto dhan baan qabaa waxaan u nimid xalayto 3 barkii habeenimo salaadii subax halkaasaan ku tukaday bahalka tuurka dushiisaan ku tukaday si fiican bay noogu socotaa alxamdulillah. magacayga waxa la yiraahdaa Khadra Cali Ismaan baa la yiraahdaa waxaan leeyahay way wanaagsantahay si fiican way u socotaa anigu xalay waxaan imikowdii qofkii ugu horeeyay baxayna waan ahaa waxaan leeyahay Ilaahay nabadgeliyana noogu dhameeyo waana si fiican bay u socotaa wax qalalaasa iyo wax dhibaatayna ma jirto baan leeyahay waxaan imid 4 subaxnimo miyaad codaysay ma imkaan dhow insha Allah wali ma codayn dareenkaygu maanta alxamdulillah aad buu fiican yahay mar haddaan nabad ku codeynayo wadankayga inaan ka codeynayo musharaxan doortana aan u codeynayo waxaan imid 6 saak si fiican oo u socda kii aan doonayno waan ugu codeeyay aan codeeyay markaa ka soo baxay si qurux badan oo socota alxamdulillah wala nabadgeliya wala xusbigii doonayay buu guriday halkii aan watay aan guriday aniga waxa la dhaahani Cabdixakiin Umar waxaan imiga waa soo codeeyay si nabadgeliyana ay noogu dhamaatan Ilaahay ka baryana waxaad soo jeedinaysaa dadweynaha kale ee taagan biyuga inay sida aynay marna ka caajisin mar walba ay soo taagnaadaan Ilaahay codkooda ay dhiibtaan waan soo codeeyay aniga dadaas waa la isiiday waa la ifeebar sameeyay marka waan iska fiicanahay Allahayna walaajoon dareenkaaga saaka dareenkaagu siduu yahay oo dareenkaygu waa nafta footay iyada ka cikarey soo doonatay foot tiri laba ku soo ridaya haday baritay noqoto ayga haro magaceeda dareenkayga shacbiyeed aad baan ugu faraxsanahay maadaama doorashadeennii aynu muddada dheer u soo heelanayn ay Soomaaliland oo dhan ay si wanaagsan inooga socoto shacbi badan oo gobolada ku kala jiray arday aanu isku wada jaamacadayn oo la hadlay oo dhamaantoodii wada sheegeen si qurux badan ay doorashadu inoogu bilaabatay ilaahay ma hadii waxaan rajaynayaa xisbigan doortay inuu insha Allah soo bixi doono aad iyo aad buu faraxsan yahay codkaygii ninkaan doonayay baan ku soo hubsaday xisbigan doonayaan ku soo hubsaday وانا صور ما يستعوش هذه سفي عنا وانا قصبح عدكنا وحسوسية كلمية الحمد لله محمد يوسف إبراهيم درين كاغا ساكو درين كيغو adiga arkaya saaka shantii ayaan imid halkan inaan ka codeeyo dad badan aad bay iga horreeyeen dad badan aad bad ilaa saaka shantii kuyiga waan ku jirnay wali ma farkama qodnaade adiga arkaya saan u taaganahay kabiyaan gashanay saaka shantii ayaan ku taaganahay magacaygu waa Farxaan Awis Maxamuud waxaan soo galay saaka 4 subaxnimo meesha imid halkan salaadii subax ku tukaday dareenkayguna maanta cirku maray alxamdulillah rabbil caalamiin sababtoo ah waxaanu doonaynaa inaynu himilada Soomaaliland hirgelino oo codkeenu kor u kaco caalamka la inaga arko marka way fiican tahay alxamdulillah rabbil caalamiin si nabadgelyo bay u socotaa si fiican oo qurux badan bay ay u socdaan shaqadu u socotaa ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa in nabadgelyo noogu dhamaato ummadda Soomaaliland waxaanu ku dardaaraynaa dhammaan goob kasta iyo meel kasta oo la joogo in gacanta lagu codeeyo gacanta nabadgelyada lagu ilaaliyo oo nabadgelyada loo soo wada jeedo loo wada foojinaado gaar laga wada hayo codeeyo lugba wax ka qabo waan codeeyay maxaad filaysaa marka guul baan filaya magacaygu waa Asma Xasan Ismaaciil saaka shantii ayaan soo baxay ma sha Allah jawigu si fiican buu noogu socdaa imika noo bilaabantay si fiican oo ammaan buu noogu socdaa si wanaagsan oo nabadgelyada oo xasiloon oo safka kuyuga aan cidina dadka kala boobayn oo wanaagsan bay ku bilaabantay halkan waa maxadka ayrim waa hawshiisa saaka waxa noo bilaabantay 7 subaxnimo si fiican oo noogu socotaa nidaamkuna uu noo fiican yahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inay doorashadaasi noo noqoto tun nabadgelyo noogu dhamaata oo maxay aanu ku helno madaxweyne mustaqbalka ee dalkan xukumi lahaa anigu magacayga yahay Baashaad Cabdullaahi waxaan halkan ka hambalyeeyay in doorashadii sheegayeen in doorashadii noo bilaabatay 7 subaxnimo si nabadgelyo ah insha Allah waxaan rajaynayaa in madaxweyne lagu reeyo oo lagu reysto inuu nooga soo baxo kii Ilaahay doortaa soo baxaya nin walba codka ku jecel yahay ugu rido hadalkuna ha yaraado nabadgelyana ha la ilaaliyo wixiina Allah inaga qabto faataha damaaleedan rasuul Ilaahay bogeena burcad ha isku mariyo
يا خير تكون ماتنا الله كدغو إذا ما الله إذا ما رسوله إلهي إذنكي سقرات من الله إلنا حريص لا دايم كهينا وياه ترى إنك قاعد بالفرحسن ولا على وحنا فرحسن إن بطل يصلوا عذين تدخل عذينين قرمة ساكن تضبطي والدين ولي ما يولي ما عذين صفن كشرة aad baad mahadsantiin runtii saaka salaadii iyadoo cadceedba soo bixin bay dadku kuyuuga ay buuxiyeen meelaha qaar waxaa la sheegay in xalay dadku ay ku soo jeedeen marka goobo badan baanu soo marnay oo magaalada gudaheeda hawshu si fiican bay u socotaa idinkuba kolle waa aragteen dadku kuyuuga si wanaagsan bay ugu jiraan dhammaan agabkii lagu codeynayay goob walba waa ku diyaar magacaygu waa Canab Xasan Maxamed waxaan ahay ururada ku bahoobay dalada nagaad baan kamid ahay waxaan kamid ahay dalada naafada ee Somaliland waxaan saaka u soo kalahay inaan codeeyo oo codkayga bixiyo codkaygana aan siiyo musharaxan doonayo haddii alla ka dhigo anigoo xor ah daawadayaal codbixinta doorashooyinka madaxtinimada ee Somaliland ayaa si habsami ah uga socda guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Somaliland waqti xaadirkan waxaanu ku sugannahay deegaanka Masallaha ee koonfurta caasimadda magaalada Hargeysa oo waqtigaasi aanu kula kulannay isagoo uu ka codeynayo wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Somaliland Dr. Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye wasiir kusoo dhaw telefishinka qaranka kulley mas'uul waxa tahay ka tirsan xisbul xaakimka waxaana tahay wasiirkii caafimaadka guud ahaan balka waran horta doorashadu si dalka uga socoto bismillaahir rahmaanir rahiim axmed aad baan idin salaamay marka hore alxamdulillaah rabbil caalamiin doorashadu si wanaagsan bay u socotaa ilaa hadda ilaahina waxaan ka baryayaa in ay noogu dhamaato nabad iyo guul dadweynaha telefishinka qaranka daawanaya waqti xaadirkan gudahiyo dibadba maxaad fariin u diri lahayd fariintan u diray waxa weeye shacabka reer Somaliland ka qayb qaadanaya doorashada in ay marka ugu horeysa codeeyaan qof kasta oo isdiiwaan geliyay inuu codeeyo waa muhiim mid labaad waxaan ugu baaqayaa inay ilaaliyaan amniga iyo nabadgelyada iyadoo ay muhiim inoo tahay qaran ahaan iyo wadan ahaanba inaynu si nabadgelyo leh oo sharaf leh doorashadan ku galno taasoo wax weyn ka taraysa ama soo dadajinaysa اعترافك aynu doonayno wasiir waxaad inta badan aad ula socotaa doorashooyinka dalalka reer galbeedku qabtaan maxay ka matashaa doorashada waqtigan ee madaxtinimada dalka Somaliland doorashooyinka salahaan wadamada Yurub ee hore u maray wallahi runtii waxa weeye waa doorasho u dhiganta doorashooyinkii aanu dalka Mareykanka deganaa muddo badan aad bay ugu soo eg tahay markaad eegto hanaanka iyo habka markaad eegto dadka habka nidaamka la isticmaalayo ee kaarka kaasoo aan suurtagelinaynin in la sameeyo been abuur iyo ku noqnoqosho waxay ka matashaa xagga amniga iyo nabadgelyada oo goobaha aan ilaa saaka soo maray waxa ka socda codbixintii nidaam baana ka socda dadku kuyubi ku jiraan si wanaagsan ayay u socotaa waxa muuqata in Somaliland ay gaadhay heer u dhigma heerarka caalamiga ama wadamada horumaray doorashooyinkooda waa waxa loogu farxo wadan yar oo aan la aqoonsanayn oo Afrika ku yaala oo heerka gaaray wadamada Afrikaanka xitaa habkan doorashadan u socoto wadan gaaray uu ku yiri ama ma jiraan oran karaan maxamed musaawaale waa la yiraahdaa waxaan qabaa inay tahay maalin aad iyo Somaliland weyn maalin inaynu ku farxano ilaa imika waxaan joognaa saacadii malaad 9 barkii wadiga arkay wali saxmad jirto oo nin wali rabo inuu boodino inuu bixiyo inuu codeeyo ciduu isaga ciduu u fidiyay cid kale waa marxalad aad iyo aad magaalada Hargeysa inay nabad inoo tahay maanta waqtiin gobolladina waxaan leeyahay sida ay Hargeysa u tahay idinka waxaanu rajaynaynaa aanu maqalay inay nabad iyo si wanaagsan arrimo inoo socdaan ilaahayna idin qabto waddankana uu socon doonaa wixii dhalinyarada waqtigan aan maxay bood bixinayna waa inay sugaan maalaan maanta 20 ka gaadhaan mas 8 gaadhaan ka dambeeydu wada vote gareena maantana sida u shaqeysan u shaqeeya waliba waxaan jeclahay commissionka aad iyo aad u mahadnaqayna aynu ku faano commission wanaagsan oo shaqo qabtay inaan aad iyo aad ugu faano weeyaan
mid baan rabaa kol hadday timaado inaan ku darsado waxa weeye hadii goor waxaan ka maqlaa Soomaaliya Somaliland waxa weeye taariikh bay leedahay laga sheekan karo maayo war Soomaaliya hadii Republic of Somaliland la noqdo oo Republic of Somalia la noqdo way laba dawladeed oo walaalaha noqono oo laba kursi ku yeelay United Nations systemka oo laba kursi ku yeelay OUda oo laba kursi ku yeelay Islaamka oo laba kursi oo nigaadi anigu director baadigaata ka joogi jiray waxaan kaaga Soomaaliya Kenya joogo Soomaali Kenya ta Kenya labo warka jooga kaliya shanaado Ethiopia cidina kama dhul wanaagsan oo kama dawlad xoog badan ma jiro iyadana dhankaaga qabso madaxnimada iyo madaxweynaha doonta wanigaaga Djibouti baa leedahay Afar iyo Ciisaatiin waxa la Ciisaatiin Soomaaliyeed idinkuna saas le Djibouti noqon waxaan u jeedaa weeye in cid waliba meesheeda gaashano markan shirarka sunnamada inay isu jabin oo wada shaqeyn Somaliland iyo Somali Republic iyo Somaliland Republic hadda in yeelo weyno ninkii joogaan ahay ragii bari hore joogo amar daga Allah dago nin mar laba tagana ana istagay ma doorashada maanta ka dhacaysa Somaliland waa mustaqbalkii Somaliland oo saddex jibaarmay weeyaan ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu si nabadgelyo noogu dhamaato dadkana waxaan maartay kuyugina si waxaan ku soo kalaanay saaka subaxii hore waan taaganahay jawiga wuxuu nabad baan intaan taagnay nabad bay ku socotaa gobolada dhan saan ku Allah hadlay waxa weey nabad bay ku codeynayaan ilaahay mahadi weey komishanka soo qabanqaabiyay ilaahay mahadi weey ku maadsan yihiin hawshu si wanaagsan baa u socotaa kuyugan taaganahay saaka ayaan soo galay dadweynaha reer Somaliland ee dalka oo dhan waxay saaka u soo jarmaadeen oo ay soo dareereen sida ay uga qayb qaadan lahaayeen codkoogana u dhiiban lahaayeen xisbiga ay danaynayaan mid walbana xisbiga uu taageersay oo codkiisa u siin lahaa si habsamiye ilaa imika u socotaa shucuurta dadku aad buu sareeyaa qof walba waxa uu maaragtay doorashadaas uu gashado oo yaani hamuunta dadku ay u qabaan inay wax doortaan ay yaani ka turjumaysaa waa talaabo loo qaado dhinaca horumarka iyo dimuqraadiyadda yaani qarannimada Soomaaliland wax weyn ay doorashadaas iyo beesha caalamkaba ay u tahay si nabadgelyo ayaan rajaynaynaa insha Allah inay u dhamaato kii soo baxana insha Allah in loo haneeyo oo aanay maaragtay inta kale u hanayso sidii Somaliland ay ku soo caanamashay ayaan filaynaa insha Allah dareenkaygu saaka aniga shakhsiyadeyda maalintii 19kii ee May burco aanu joognay ee gobonimada Somaliland dib loo soo noqday lagu dhawaaqay iyo maanta waa isugu kamid waxaan salaamayaa dadweynaha ama population reer Somaliland meel kasta ay joogaan dibadda gudu waxaan gaar u salaamayaa inta kayiga ku jirta maanta ee muwaadinimadooda muujisay dimuqraadiyaddooda muujisay horumarkooda muujisay dawladnimadooda muujisay waxaan leeyahay nabadgelyada aynu haysano ilaahay ha inoogu wado way inoogu dhacaysaa ilaahay ha inoogu dhameeyo wax dhibaato ah igama soo sheegin 6 gobol maxay kaga duwan tahay doorashooyinka hore ka dhacay Somaliland waxay kaga duwan tahay marka aan eego waxay kaga duwan tahay ama aan cadeeyo madaxweyne tanaasilay isagoo teeramo harsan yahay oo yiri war u soo tartama ayay lambar 1 kaga duwan tahay waxa kale kaga duwan tahay habsami socodka oo gees kasta loo eego intii hore ka wanaagsan oo xagga horumarka geedi socod wanaagsan loo qaaday alxamdulillah rabbil caalamiin iyo qaabka loo codeynayo kuwii hore oo dhan ka fudud kana يعني هدي لك أبني iyo سكورة wanaagsan alxamdulillah rabbil caalamiin waan u hambalyeynaa Somaliland waxaan qabaa maanta ku dhawaaqista madaxweynaha cusub ee soo baxa iyo ictiraafka inay wada socdaan toos wada xulinaysaan guud ahaanba daawadayaal sida aad la wada socotaan waxa dalka Jamhuuriyadda Somaliland saaka hirtii waa bari ka bilaabmay doorashada codbixinta madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland oo ay ku tartamayaan 3 murashax ee xisbiyada kulmiye wadani iyo ucid iyadoo dadweynaha rag iyo dumarba ay xiliyadii hore ee saaka qaarkoodna ay ku waabariisteen goobaha codbixinta ee loogu talagalay inay codkooda ka dhiibtaan dadweyne fara badan ayaa goobtan oo dhowr goobood iyadu iskugu jirta iyagu ka codeynaya waana dugsiga Sheekh Cali Ibrahim ee magaalada Hargeysa idinkoo arkaya sida ay dadweynuhu u codeynayaan ama ay kuyuga u taagan yihiin inta aanay codeyn
bal haddaba waxaanu jecelnahay dadweynahaasi faraha badan ee iyagu codkooda dhiibanaya ee kuyuuga taagan ee iyagu doonaya in ay codbixintaasi si muwaadinnimo ay uga qayb qaataan bal aanu wax ka weydiinno waxaad ka mid tihiin dadka muwaadiniinta ah ee haweenka ah ee iyagu goobtan doonaya inay ka codeeyaan bal dareenkiina ka warrama dareenkaygu waa farxad horta bismillaahi raxmaani raxiim kulmiyaan ugu ridnaa ta koobaad dareenkayguna aad baan u faraxsanahay xilli maad timid ilaa waxaan imiday ilaa 5 saacadood ka hor ilaa xalwan taagan 5 saacadood ka hor ilaa imkana waa taagan tahay aad bay rajadaadu u fiican tahay waxa dhibaato oo dareemaysan ma jirtaa may bilabala ma jiro bilabala fara badan ma jiro Somaliland ay dadweynuhu si xooga isugu soo baxeen si ay codkooda u dhiibtaan ayaa muwaadinkan waxa uu ka mid yahay muwaadiniinta iyagu codkooda soo dhiibtay magaca bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa khadar cabdi jaamac khadar ka waran dareenkaaga codkii ma soo dhiibatay codkii waan soo dhiibtay maasha Allah oo taafartayda aad aragtaan waxaan aad ilaahay baan subxaanahu wa tacaala u mahadnaqayaa marka hore marka labaad waxaan aad ugu faraxsanahay maanta codkaygii inaan siiyey muuse biixi cabdi dadka reer biyo dhacay halkan goobtan jooga waa 4800 baa loogu talagalay maanta inay ka codeeyaan 4850 ka qof dadka qaar xalay bay seexdeen halkan u hoydeen anu dadkii ugu horeeyay saaka imid baan ahaa waxaan imid halkan oo subxaanallah aad yaabto dadka jooga si wanaagsan bay imika u socdaa inkastoo ay ku cusubtay hawshan doorashada kaadharka lagu galay noocan oo kale laakiin haddana waxaad moodaa imika saacadahan aynu joogno inay la soo qabsanayaan macal commissionka dadka gudaha ugu jira systemka la soo qabsanayaan way fududeeyeen dadka halkan jooga qaar baan quraacan biyo cabin cadceeda taagan ilaahay waxaan uga baryayaa iyagana khayr inuu siiyo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi uu yimid halkan uu noogu yimid kamar dhaweyd dadkii salaamay ma sha Allah oo maalin farxad leh anu aad baan ugu faraxsanahay sida quruxda badan wax u dhacayaan iyadoo aanu ku guda jirno codbixinta doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Somaliland iyo goobtan oo iyadu dhowr goobood iskugu jirta kuyuyaduna ay dheer yihiin dad badanna ay codeeyeen qaar fara badanna codkoodu uu harsan yahay oo ay sugayaan cadceedda ama bacadkaasna ay u adkaysanayaan muwaadin ka mida muwaadiniinta iyagu ay codkooda u taagan halkan aan wax ka weydiiyo magaciisa ugu horreyn iyo dareenkiisa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ومصطفى أو بلا بكر ترى كيجونا أدبان وفرحنا هاي وأنا دري أنا شعب أنا عبير كريم صار الصبح halkan goobtan taagana saad soo ku tukaday ilaa saad soo xilaa imiko sagaalkii subaxnimo 4 saacadood oo taaganahay waana u samreeyaan gal insha Allah guul baan rajeynayaa Soomaaliland guul waayahay muwaadin kale oo ka mid ah muwaadiniinta iyaguna halkan taagan aan wax ka weydiiyo magacaaga iyo dareenkaaga محمد حسن بالله مقعيقه dareenkaygu aad iyo aad buu fiican yahay waxaan imid saaka aroortii min subaxdii todobadii waad ku qanacsantahay inaad intaa kuyugu taagan yahay ama intaa ku soo fadhiyo inaad taagan aad iyo aad may aad baad mahadsan tahay mid kale xasan maxamed jaamac weelada dareenkayga aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta halkan codaynta u taagnahay لحدي صحن ما يمساك أبدا باسن haweenka ayaa iyagu goob kasta oo aad tagto aad dareemaysaa in ay xoog u tiro badan yihiin hiirtii hore ee saaka intaan waagu baryina qaar fara badan oo ka mid ay yimaadeen hooyo ka mid ah hooyooyinka reer Somaliland ee iyagu goobtan ka codaynaysa aan weydiiyo magaceeda iyo dareenkeeda magacaygu waa Qadisho Baday saaka salaadii waan soo kacay 4 habeenimo walina wariga halka taagan maana wala halkaas ku dhacay saaka shucuurta aad iyo aad u kaxsantahay dareenkaygu aad sidaas oo ku qanacsanay wallahi macaan ma loo ku dhacayba wariga caagad macaan cabayo adigu dareenkaaga iyo magacaaga ka magacayga waxa la yiraahdaa Safiya Abubakar saaka afartii ayaan halkaas soo taagay marka dareenkaygu aad iyo aad u fiican yahay cadceedda iyo halkan taaganahay waan ku qanacsanahay
waan ugu talagalay inaan ugu codeeyo maxaan dhahay xisbigaan doonayo aad baad maasantay aduu dareenkaaga ka warramay الله مقعي وامن حسن محمد دراكي هو بقول كيف بقول الحمد لله رب العالمين ما هذا واحد اسكال إله نبتقليه ذا النسير أنت أصلا نبتقليه كو عضينيسا بقول كيف بقول دراكي يقوي عد وحبنا ما يليسو كيوق وحبنا ما يليو ساي خير بينه كل ما نسا آديات أنا والله ما تدرين هاي لما سووا كوابي كراي وما الآن نوقو قيمة وين إن شاء الله سومالي نقولي اعتراف صبر الرسيرين أنا شو قاعد أحمد الله راها وحن نقول ما أنت فرحان عليه فرحان نودي المتي تو قاعد بنقول فرحان هاي إن شاء الله نقول بنرجعين نقولين إن شاء الله هاي نقول مسترا آمين idinkoo daawadayaal dareemaya sida ay ama muuqaal ahaanba ku arkaya dadweynuhu sida xoogga ah ee iskugu soo baxeen rag iyo dumarba si ay codkooda ay u dhiibtaan isla markaasina ay ugu codeeyaan musharaxa ay jecel yihiin inay u codeeyaan saddexda xisbi qaran ee kulmiye wadani iyo wicid ayaa waxa kale oo la kulanay mid kamid ah haweenka reer Soomaaliland oo iyaduna kuyuga u taagan sidii ay codkeeda u dhiiban lahayd adigoo magacaaga sheegaya dareenkaaga na cabiraya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة الله شعب كالكن كسجن مقعي جوا نسرين حاج عمر حسن وحنا عضينا يا إن مضى المادة رضا يا متك هو بيجي يقول لها يستا الحمد لله رب العالمين وأنا نتاجنا يا أنت عاد عدم حي هذا يعني أنا عضينا يلا أنت عضينا يا كل له ورهتشينا يا هذه مقعد دريك عبد الرابي ما شاء الله ما شاء الله ما أنت درينك جوا بقول كيف بقول وحنا كو قياسة كرم لها فرحات بام بدبضان هاي قبل كل هذا يقول عاد عدنا ساسنا هانا يا وأنا كو قنع سنة هاي وحنا مساك أفرتي ها كور رمى يديك درينكينا مقعد هذا الشيء أنا سمسم أحمد درينك هذه أدي ما توفر أحسن هاي ندانا أو واحد كيو كتر عاد عدنا نقول ترى درينك يجينا نقول استو أدي أدنا نقول أحسن هاي واي هذا مقعد درينك كور الله نقول أدو ما تعوديسي وين عودي ها درينك كور درينك قاعد بونا كسايا حسب كان دورينا وين عودي تدخل صفي عم بده وقسم ريان عاد عيدا قور ما تمد waxaan imid saaqa salaada subax goorma codeys waxaan codeeyay imika adoo dhowr daqiiqo ka hor haayeen codeey aad baan ugu faraxsanahay ha way adiga magacaad dareenkaaga ka waran leedahay dareenkaaga aad buu wanaagsan saaqa salaada subax waan imid imikana waan ka soo baxay waan codeeyay waad maasantahay codbixinta doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ee shacbiga Soomaaliland meel kasta oo ay joogaanba ay codkooda ka dhiibanayaan kuna dooranayaan musharaxa ay jecel yihiin saddexda xisbi qaran ee kulmiye iyo wadani iyo ucid ayaa goob kamida goobaha codbixinta anagoo ku sugan isla markaasina aad arkasaan ciroole iyo dhalinyaro waayeel rag iyo dumarba in la iskugu soo baxay sidii qof kastaaba intii kaarka codbixinta qaadatay ay codkooda u dhiiban lahaayeen qaarkoodna afartii habeenimaba ay yimaadeen si kuyuga qofka dadka ugu horeeya ay u noqdaan isla markaasina dad fara badanna ay kuyu xooga taagan yihiin ayaa waxa aan jecelahay in mid kamida waayeelka reer Soomaaliland aan wax ka weydiiyo magaciisa iyo dareenkiisa waxa la yiraahdaa Umar Maxamed Axmed dareenkaygu aad buu fiicay moraalkaygu aad buu wanaagsan waxaan u codeynayaa si fiican adiga magacaada dareenkaaga ka waran Abdullaahi Sulmaan aad buu dareenkaygu u fiican yahay aad baan inaan u codeeyo u jecelahay waan ku qanacsanayaa ilaa gobolka uu dhacayo waan ku qanacsanahay aad baad maasantahay adiga magacaada dareenkaaga Abdiraxmaan Maxamed Jaamac oo dareenkayga aad iyo aad ma sha Allah u fiican si fiican bay hawshu kala socotaa dareenkaygu si fiican ma sha Allah inaan codeyno xul taagna saddex xisbi qaran kala saarno ma sha Allah aad baad maasantahay dadka faraha badan ee iyagu cidceeda taagan marka ragga laga yimaado iyo haweenkii hore aad u soo daawateen qaar kale oo kamida haweenka aan u imaado cidceed baa taagan tahay magaca dareenkaaga lagu hore waa hagaag waxa filayaa haweeneydaas iyadoo inay tahay dadka had iyo jeer kamarada dad baa ka gabada bal haweenka kale aan u imaado magaca dareenkaygu aad buu fiicay waan ku faraxsanahay waanan codeeyay waxaan leeyahay gantaala cadceed iyo imada maqda gaajada aad baan u mahadsantahay goormaad in soo istaagtay shantii saaka markii goormaad codeysay waxaan codeeyay imika ha maxaa markaa ku yood taagtay cid kale aad sugaysaa ma waan sii hooyanaya codkaygu ma doonayna doobo aad baad mahadsantahay
mid kale oo ka mida dadweynaha iyaguna codkooda saaka dhiibanayay gaar ahaan dhalinyarada aanu imaado magaca dareenkaagana ka waran bismillaahi raxmaan raxiim anoo magacaygu yahay cabdiraxmaan iid ismaaciil horta saddex xusbi aad iyo aad baan u salaamaya saddexduba saddex qaran saddexduba ma doonaya midba maxaa yeelay inuu gaar u sheegto laakiin mid kastaba maxaa yeelay wuxuu doonayaa sidii maxaa yeelay toddobadii sano si ka sii fiican inuu sii horumariyo waddanka aad iyo aad baan ayaan u salaamay saddexdaba waan hambalyeynay aad iyo aad baan idin salaamaya ninkana codkaaga ma dhiibatay haa waan dhiibtay imise waad soo istaagtay أنا واحد سوي استاجي شنتي يبركي goormaad codaysay waxaan coday 8 يبركي waad maadsantahay adigu magacaaga iyo dareenkaagaba magacayga waxa la yiraahdaa Xuseen Yuusuf Umar dareenkaygu aad buu kacsan yahay saaka waxaan shantii barkii waxaan coday ka baxay 8 farxad ugu horeeyay nasiibka yeeshada ahayd way adiga ma Cabdiraxmaan Cabdullaahi Sheekhunis Cabdiraxmaan ee dareenkaaga ka waran aad iyo dareen aad u weyn oo wadannimo ayaga muuqda waan soo codiyay saaka salaada subax dabadeed baan nimid waan soo codiyay idinkoo magacaaga iyo dareenkaaga bismillaahi raxmaan magacaygu Cabdullaahi Maxamed dareenkayguna aad iyo aad u fiican yahay nabadgelyada fiican ku codanayno iyo ikhtiyaarkayga aan codka ku bixinayno ayaan ku faraxsanahay waxaan u taaganahay sidoo codka ku bixin lahayd inuu gaarso 12 caawa بإذن الله كريم قول وقتين هذا يوم بسم الله الرحمن الرحيم قاعد هند بر عمر وحن سومالا ورتين يقول يعني هرمر قادو أنا ولي ما عضين لكن كعضين يا صدق دوان هم بليين يا كي سهل وحن لي هاي نبدي يا إن كفدينا ربع aniga waxa la magacayga Cabdiqani Maxamed Yaasiin waxaan ku noolahay xaafaddan idaacada waxaan laga soo istaagnay saaka 4 habeenimo oo nimid laakiin ilaa 5 way bilaabantay waxaan u rajaynaynaa anagu saddex xisbi qaranba guul waxaan leenahay guuleysta way wali maan codayn doorashada codbixinta madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ee shacbiga reer Soomaaliland ay codkooda dhiibanayaan ayaa geesta kale iyaguna waxa ka qayb qaadanaya oo intaasi iyaguna goobaha kala duwan maraya goobjoogayaasha caalamiga ah ee ka kala yimid dalalka caalamka si ay ula socdaan doorashadanu sida ay ugu dhacaso si xaq ah oo cadaalad ah isla markaasuna ay dadku codkooda qaabka iyo habka iyo hanaanka ay codkooda u dhiibanayaan muuqaalka arkaysanaa waa qaar kamid ah goobjoogayaasha caalamiga ah si ay ula socdaan dadka u yimid codbixinta doorashada madaxtooyada iyo hanaanka ay u dhacasaba iyadoo daawadayaal aan ku guda jirno goobaha dadweynuhu ay kuyuga kaga jiraan ay iskugu soo baxeen magaalada Hargeysa ayaa goobtan waxa ay ka mid tahay degmada Gacan Libaax gaar ahaan xaafadda Cabaaye dad fara badan oo rag iyo haweenba leh ayaana codkooda doonaya in ay dhiibtaan kuyuga ama ciidaasina u taagan sidii ay codkooda u dhiiban lahaayeen qaar fara badan ayaa iyaguna codkooda musharax ay doonayaan ama ay jecel yihiin inay u codeeyaan doorashada codbixinta madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ee saddexda xisbi qaran ee kulmiye wadani iyo ucid mid kamid ah muwaadiniinta iyagoo goobtan ku sugan ayaan jecelnahay bal inaanu magaciisa weydiino iyo dareenkiisa magacayga waxa la yiraahdaa Cali Cabdi Cumar ayaa la yiraahdaa halkan waxaan soo ka nimid 4 iyo barkii waan nimid marka waxaan doonayaa inaan demo seerkayga iyo codkayga dhiibano insha Allah dareenkayga aad buu wanaagsan yahay shucuurtaydu aad buu fiicantii dadkana waan ku wacyigelinayaa inay u samraan codkooda waayahay aad baad mahadsantahay wax dhibaato oo aad dareemaysaa ma jirtaa aduu wax dhibaato oo dareemayna ma jirto wax dhibaato oo dareemayna ma jirto waay ugu talagalay jira iyo hawsha dhibta jirta waan ugu talagalay waa cadceeda iyo kuyuga ayumaan ku xisaabtamaynaa inaan ugu dhabar adeegno magacaaga iyo dareenkaaga bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Cabdiwahaab Maxamed Cismaan ilaa saaka kama taagnaa waxaan diyaar u ahay inaan codkayga dhiibto sababtoo ah waa maalin qaran waxaasoo ummadii halkaa waxay u taagiin inay codkooda dhiibtaan oo cid ay doonayaan oo codeeyaan markaa wax baan cid ay dhiimayso ilaa saaka 8 waan taagnaa ilaa imkan waxaan ku jiraa safka badareenkuna aad baan faraxsanay waa maalin qaaliya aad baan faraxsanay bismillah waad maasantay magacaaga iyo dareenkaaga magacaygu waa Maxamed Xuseen Aadan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in codkayga dhiibto saaka xaggan 6 wimi laakiin waxaan ka yar dareemanaa culays xagga shaqaalaha ayaanu yar dareemanaa oo muxuu ahaayay aan meeshii absan socodkeedii baa ayaa maxamed moodaa aanu yara saluugana haddaanu nahay dadweynaha goobtan
oo muxuu ahaayey gacanta ayaa nagu yara culus markaa dadku waxaad moodaysaa inaanay waxba soconaynin baad moodaysaa dee annaguna waanu ku khasbannahay inaanu taagnaano oon muxuu ahaayey codkayga dhiibanno aad baad mahadsantahay waa yeel ka mid a isaguna dadweynaha magaalada hargeysa ku nool iyaguna codkooda goobtan ka dhiibanaya aan magaciisa iyo dareenkiisaba weydiinay magacaygu waxaa la yidhahaa axmed yaasiin maxamuud waxaan ka dhiibanayaa halkan goobtan ayaan ka dhiibanayaa codkayga dadku aad bay u soo baxeen xaafadayada tan marka aad iyo aad buu dadku u taagan yahay iyadoo oo in yaroo gacan culays baan haysata laakiin aad baan u faraxsannahay waananu u dhabar adaygaynaa maanta waanu u dhabar adaygaynaa maanta maxaa hiday hawsha qaran ee taagan aad baad mahadsantahay magacaaga iyo dareenkaaga cali axmed baa la yidhahdeero dee lixdii saakaanu nimid weli alankaa waanu taagannahay meeshii dee waxba ma kala soconayaan hablo yaryar baa la keenay oo aan hawshii wadi karaynin waayo cabashada kasakow dareenkaaga ka warran dareenku si u fiicnaa wuu fiican aad buu fiican yahay aad mahadsantahay iyadoo haddaba codkooda ay dhiibanayaan haweeniyo ragba hadday waayel yihiin iyo hadday dhalinyaro yihiinba mid ka mid ah haweenka iyagu codkooda aan filaya inay soo dhiibteen aan magaceeda iyo dareenkeeda weydiinay faadma nuur cismaan baa la yidhahdaa alxamdulilah way noo soo dhammaatay si fiicanna way noogu socotaa insha allah kulmiya jiro ha joogo goormaa timid waxaan imid saaka salaadii 4tii aroornimada halkaas soo joogsaday goormaad codaysay imminkan codeeyo wanigaa ka soo baxay aad baad mahadsantahay hagaag iyadoo aanu ku guda jirno codbixinta doorashada ee dadweynaha iyo dareenkooda bal inay ka warramaan iyo sida ay u codaynayaan iyo hannaanka ay codayntu u socotaba magacaa fadxiye carab axmed fadxiye goobtan ayaad ku codaynaysaa codkii miyaad soo dhiibtay mise imikaad ku soo dhiibtay waan soo galo wanigaa soo galay dareenkaaga ka warran aad buu u fiican yahay maasha allah si fiican bay u socotaa doorashaduna aad iyo aad bay u fiican tahay goormaa timid goobtan 3dii xalay haddana waad soo codaysay haa waan codeeyey way ii soo dhammaatay aad baad mahadsantahay isla goobtan codbixinta dadweynaha faraha badan iskugu yimaadeen ee codkooda dhiibanaya haddii ay haweenka yihiin amaba hablaha ay yihiin ama hooyooyinka ay yihiin ama aabbayaasha ay yihiin ama dhallinyarada ay yihiinba mid ka mid ah haweenka iyagoo codkooda dhiibanaya aan filayo inay kuyuga weli ku jirto faraha badan leh magaceeda aan weydiiyo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم هرتي دمان شعبك رئيس سومالان aad baan u salaamaya sida dimuqraadiyada maxaan ku dhaaqay Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa goobtan ka codeynaya waa cabaaye saaka waxaan soo taagay 6dii oo waxla marka waxaan shacabka reer Soomaaliland runtii aad ugu hambalyeynaya sida quruxda badan ee mar kastaba ee guusha leh ee horumar kale in badan oo Afrika ka horumarsanahay ee aan u codeynayno ee aan dareenkayga ku jira aan ugu codeynayo ee dimuqraadiyada ama shacabka reer Soomaaliland dhamaantood codeynaya guul loo waan rajaynaynaa badan insha Allah guul baa Soomaaliland rajaynaya aad baad mahadsantahay mid kale oo ka mid ah haweenka iyaguna codkooda jecel in ay dhiibtaan codbixintan doorashada madaxtooyada ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland saaka hiirtii waa bari ka bilaabantay magaceeda aan weydiiyo iyo dareenkeeda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا هيا محمد عمر حافظ العب أيام سكون من دمان كل جيجو فرحت أنا نسوكو بكرن حيم جيجو نهار كن هيكسرنا على جوش على إلهي نصيه آمين daawadayaal haddaba marka aynu goobtan ka tagno meel kale oo aan iyaduna sidaasi uga fogeyn ama goob kale oo aan sidaasi uga fogeyn ayaa barbarkan ka xigta oo iyadana aad arkaysaan sida ay dadweynuhu ay u codeynayaan haween fara badan oo tiro badan ayaa aad arkaysaa in ay ku jiraan marka safkaasi laga soo bilaabo dhinaca kalena iyadoo aad arkayso in iyaguna raggii iyaguna kuyuga ay ku jiraan qaar fara badan oo kamid ah ayaa iyaguna codkooda dhiibtay intana waxa ay u taagantay dadkaasi faraha badan ee dadweynahaasi faraha badan saaka hiirtii waa bari ama saqdii 4tii habeenimo soo kalahay ama xiliyadii ku dhawaa sidii ay iyaguna codkooda u dhiiban lahaayeen iyagoo markaasi jecel inay codkooda ku soo saaraan musharaxa ay jecel yihiin saddexda xisbi qaran musharaxiinta u tartamaya ee xisbiyada kulmiye wadani iyo ucid bal iyagana qaar ka mid ah aan dareenkooda aanu bal eegno magacaaga dareenkaaga magacaygu waa Khadar Buureed Cabdilaahi dareenkaygu aad buu wanaagsan yahay waxa socota doorashadii maxay madaxtooyada Soomaaliland oo ay ku tartamayaan saddex xisbi waa wadani ucid iyo kulmiye
dabcan dadkani saaka 6dii bay halka yimaadeen si ay codkooda u dhiibtaan jawiguna aad buu wanaagsan yahay nabadgelyaduna way fiican tahay si fiicanna doorashadu u socotaa aad baad mahadsantahay magacaaga iyo dareenkaaga magacayga iyo dareenkaygu wuu fiican yahay maanta magacaygu waa Naasir Cabdilaahi Maxamed 6 saakaanu nimid wadigaana arkay saacadaan joogno ummaduna way fiicantay si fiican ma loo codeynaa ma codeyso wali way imika ku jiraa wali waad sugaysaa insha Allah adiga magacaaga iyo dareenkaaga aniga waxa la yiraahdaa Saare Cabdilaahi Maxamed saaka salaadii baan soo baxnay markaan salaadii subax soo tukanay kuyuugina waan galnay waan codeynay alxamdulillah rabbil caalamiin aad baan u faraxsanahay way adiga magacaaga dareenkaaga Roodi Maxamed saraankayga aad buu u shaqeynayaa waan codeynay guul bay ilaahay ka rasheynayna guul bay afartii habeenimo aan nimid waxaan codeeyay 7 markii albaabka saa loo furay codeeyay 7 aad waad mahadsantahay magacaaga iyo dareenkaaga bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamed xuseen cumar wallahi dareenkaygu aad iyo aad buu kacsan mana soo koobi karayo saaka xilli hore nimid ilaa aan kana waan sugayaa insha Allah khayr bay noogu dhamaan saadii ilaahay adiga magacaaga iyo dareenkaaga Ibrahim Maxamed Abubakar waan muslimin halkan saaka 6dii baa 7dii baa la furay ilaa imika wadiga arkayo kuyuga sida loo taagan yahay dhamaan waxaan taaganay inaan codeyno nuuro codeyno saddexda xusbi nima cid ugu ridaba شام محمد عبدي waxa meesha si fiican bay horta hawluhu socdaan ilaahay ku qorona wuu qoray waxaanu ka baryaynaa ilaahay nabadgeliyo inuu noogu dhameeyo meel codeysay mise codeeyay gacanteeduna waa taa ku taalo kuyuga waxaan soo galay 6dii saak imika ona 12 meel ku dhowdhowdiba waran codeeyay aad waad mahadsantahay codbixinta doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay ku tartamayaan musharaxiinta saddexda xisbi qaran ee dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland oo saaka hiirtii hore ka bilaabantay guud ahaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland goobaha kala duwan ee codbixinta shacbiga reer Soomaaliland yar iyo weynba dhalinyaro hadii ay tahay iyo hadii ay hooyooyin tahay hadii ay hablo tahay iyo hadii ay aabayaal tahay iyo hadii ay wiilal tahayba intii kaararka codbixinta qaadatay oo u kala dhaqaaqay subaxnimadii hore qaarkoodna afartii habeenimoba ay tageen goobaha codbixinta ee kaararkooda codbixintu uu ku kala qoran yahay qaar fara badanna codkooda ay dhiibteen kuwa fara badanna ay kuyuga u taagan yihiin iyadoo xilli 11 oo kala imika ay tahay si ay codkooda u dhiibtaan cidceeduna aanay damqayn ayaa goobtani waxa ay ka mid tahay xaafadda Cabaaye ee degmada Gacan Libaax oo haween tiro badan iyo rag tiro badanba ay ku sugan yihiin laba goobood oo isku dhow oo goobna hore aan u soo marnay goobta kale ee ku dhowna ay halkan tahay kuyugan aad arkaysaan haddana laamida dhinaceeda kalena kuyug kale la taagan yahay marka dhinaca rag laga yimaado haweenkuna ay laba geesood ay taagan yihiin ayaa dhammaantoodba waxay u taagan yihiin cidceedda iyo qorax kulaylka sidii ay codkooda ugu dhiiban lahaayeen si ay ugu codeeyaan qof kastaaba musharaxa uu jecel yahay si uu ugu hiiliyo musharaxa uu jecel yahay si uu soo baxo daawadayaal waxa aan idin daawadsiin doonaa qadar yar dabada haddii la yiraahdo goobo kale oo kamida goobaha dadku ay isugu soo baxeen kuyuga codbixinta iyadoo sida daawanaysayna goobjoogayaal caalamihi ay goobaha ku wareegayaan oo ka kala yimid caalamka si ay ula socdaan doorashadu habka iyo hanaanka codbixintaasi dadweynuhu ay u dhacaso si xor ah oo xalaal ah horena aad u soo aragteen goobjoogayaal iyagoo marayay goobihii dadweynuhu ay ka codeynayaan si ay u indhaydhayaan oo u eegaan sida ay dadweynuhu u codeynayaan iyo habka iyo hanaanka codbixintaasi ay u dhacaso